ولا تعجز هعاجس كوا معي قفك بني آدم قال الله وحبا كل عبيد هذا الكسل والعجز بين هذا كسلك وقفك وهسي عدم الإرادة وقفك أن دونيس بالهين إنه حقب طبر ربين عجسقنا وقفك يربا إنه وحي قبطه لكن هدنا قابن كارلا وطاقلا عدم القدرة شقق كستول قبطه وحيد هذا لبدا شيء بو عملك ككوبني إن واحد دونيسيد iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awoodo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeyahy insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camal isuma bedelayo in wax la bilaan gareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaan gareynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iska wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanimo haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nabigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nabiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma innii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci addayni waghalabati alrijaal isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegay midna waa waxa soo socda nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galayay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu waalkasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay qofku inuu cadami alqudra inuu wax awoodi waayo ama in doonistuba ka dhimato doonistuba inay ka dhimato oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanayaa buu leeyahay deetana wuu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa walaadii baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaanad qaban karinba
bukhliguna waa wixii oo anfacaagii aan dadka gaadhaynin anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati الrijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimkii inuu qof active qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika buu nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nabigu yidhi waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kula yowmin 1000 xasana maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana oo midkaa suu 1000 xasano u shaqaysan karaa 1000 ajara u heli karaa qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktub lahu 1000 xasana dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa lagu qoraya subxaan allah intay kaa qaadanaysa 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid a haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxaa meesha taalla markaa nebigu wuxuu leeyahy qofkaasi subxaana allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa aw yuxatu canhu 1000 khati'a ama 1000 dambaa laga dhigaa cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaana allahi haddaanad ajarkeeda garanayni waa aqoon darra ku haysata aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo hadaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata walow uu xoog badan yahay walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin waxay idhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay idhaahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba se aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tamar darradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajaztu an akuuna midla hada alguraab fawaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiin in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoon darrada haysatee waxay noqotay si uu u galo meydkii walaalkii buu garan waayey ilaahay baa wuxuu u soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay godu qodoyoo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo
وهلان هلا ما على يوحلي يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب هلا جيجي وكاليه ما وحن كليتا ما وحن كوحتر حماضي إن أنتكها سكلا نقضه إذا جهلي وتكو معلن كاجدي dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen jahliga fadhiisiyay beersi loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiyay jahligu marka dadka uu duleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwwa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة الشيء يا قونتا كمدة سأوجد أيو النبي عليه الصلاة والسلام إن قال دردار مياه استعن بالله ولا تعجز إلهي كالميسو واستعانة هذا إلهي كالميسو أنا عاجز قرآن كان إلهي وحينات المامية إن بدن با إلهي وحكى القرآن كورمية غير بنو إسرائيل لليه خذوا ما آتيناكم بقوة وروح عن دين كانوا يدين سودة شني ورسي اجتهادي يفر فرعوني حوق وكتشرو خذوا ما آتيناكم بقوة بإله إليه نبي موسى محا إله إليه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها إلهي نبي موسى كليه فخذها بقوة سددال يتمر كتشر تقاضى خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا مركي إلهي والنبي يحيى الله هدلي وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سحوغا وقاد بالليل سي جدية سي اجتهاد كتشره سي الددال يفر فرعوني كتشرته إلهي كتابك سو قاد بالليل وحا قرآنك إلهي وكسفينيا دادك وهسك يا عكسك هيا إن استفادة منافقين تطي وهسك إلهي وحلي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى منافقين إلهي وحكوت المامي صلاة هذا وكعا وكعا إيغو كسالى إيغو وهسي يا عاكس هيا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة لما يما دنبا إلى هيري إيغو حالة كسوغان موياني أيها الأحبة مركاد وهستا عماش ويسفول فوشاه وحي ما أنت كوها بونا إن قبطة مركاد قبن ويدو ويسسي كورتا سيأوغيد با إلهي وحكوت المامية يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض وردتك مؤمنين تهم حيد كل عي وهدي الله يدل هذا إلهي تيسا وصابح جهاتك وصوكع أثاقلتم إلى الأرض بالله ما حد لك يدن كعس ليي يا إلهي إلهي سبحانه وتعالى ما حد لك سقرنا بيساري وكعكير ويدين أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما أدون كآخرة كتشعلات با إلهي إلهي فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة قوى منافقين جهادك كوهسدا إلهي وحكوت المام إن الصفات كمنافقين تكمتي تاسي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فين صار وحيدا كم إذا بقى إلهي مدتك بعكس قالين يفرسين ودبوا الريبية وحيدا هذا دراسات كعلمي جدا بحتى عاصمات كغرضا ما أنت كشخص واحد تلمامي دراسة تلمامين علمي هونغ كونغ يكون سمايين ويدتك هونغ كونغ بارين بكسا واحد هذين ليزي نسكي يا وحقبض لا أنت إيه سيجارك bulshada keeba dadka leyntiisa ku badan bay leeyahay sigaarka waxa la wada yaqaanay inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6800 meelaas ay noqotay qolana 5700 maanta waa kuwan yiraahdaa xanuunada ugu tirada badan ee bini aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay
exercise la'aan exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato uun laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaaba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya ولذلك بقى أطباء ما أنت واحد الماميان قفكوا إنه نشاط سكيليو ما معان بعض غبطة ما سكر بعض غبطة ما كم بعض غبطة ما أنت صعو أنت قبو أنت يعني واحد غبو فردقوا مركا عقلي أنا وما في عنا إسكفردق أنا وحبل وقو قوانينين شركنا وما في عنا آخرنا وما في عنا أدونا وما في عنا ليزي نسو مركا نولشة ميل لبا وحكا قماله waxa meesha taala qofka mu'minka inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo waliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barbaa isle faataka alqatar ka sheegi jireen yaani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta xalaqada dadka bareysay oo maanta kuntan jirbaad ama waxbaad baran karaysaa dad ba kuntan jirreynta ku bilaabeen culimadii ugu waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaranay wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamaya in qaamat as-saa'a wa fi yadi ahadikum fasila فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبغى عليه هدو قيامه حقا كصوب لا بوسوقعه وأدقعنت كوهيسو فصيلة ده وحلا ده جتمريت كير الله أبغى عليه جتمريت ده أدقعنت كوهيسو هذا تكجر سينكرتين هذا أبغى شبه نبغى له يا أبغال بير هذا تكجر سينكرت بير وإننا يدان قيامة بيننا نركين بين فردنا ونلين وين جبوبي سومالي ده أفرتن شركة كو جبوبي ده سوما في سومالي مركو بني آدم كبوا حق بدنا مركو قارو أيوة ده هذا وين جبوبه وحول بوي قدام هذا بني آدم كو عقل كو كجبوبه هذا ما إنك كجبوده أيوة ما تجبوده أنت كلا وحبات قبان كرتاه أنت كلا وحبات قبان كرتاه ساوجد بالنبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو أنت جارد كهر رسالة فرصات هيسطو فرصات وحلقوا قبطين هيسطو واحد يريسان يساوي حوي نقضة واحد يريسان سبحانه قد شيء ده صدر قرآن أين قيبتها وواح كل يرسو معها حتى لا وهذا مالك استصدر قيب وقرما القرآن كردمين حتى صدر قيب وقرما القرآن كردمين waxay dhahan dhowr iyo 10 sanadood dad ku dhameynaysa dad maalin kasta sadar qaybto hada waa sadar hal sadar waxay dhahdaan wax qabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markan aad qabanayso wax yaraantiisa ayay ku muuqanin haddaad maalintii hal safxa qorto هل بيج هتاد مالنتي قرطه سنة كي مسات صو صارسة وغيران لو بوك باد قوري كرتا سنة كستا وهي سنة كوا صدح بقولي شنو اللحدا مال الموت هتاد مالك استبيج قرطه معناه دو حويان وغيران بوك صدح بقولو بيج كبدن هي قوري كرتا لكن هذا استنادو ما حاشي ان قريبه بوك نقون دونتا محام حاشي كقوري دونا اقونتو iyo wax qabadku iyo waxtarku traakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin nin wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray uu nacjilada jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda inta gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa haday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay
camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinkaa koreeyaba ilaahay tilmaamaya haddaa kuwa mu'miniinatiin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koraynaysaan xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo سوغيت بإلهي القرآن كوحله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قاتل معه ربيون معي سايلات قال قالين كوا ربي لو نسبي داد إلهي سليبي ومي ضعيف وحيد بسو قاري مي إسديب مي إسدولدقين waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaadhayaan ayuha alaxiba marka xadiiska kan wuxuu nebigu ku gabagabaynayaa calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin ووحو نبغو تلمامي عليه الصلاة والسلام ها أورنن بل ما هدان صدا يالي لها وحاسا صوبح الأساسا نغلها فإن لو تفتحه وحي فرطا لو وعمل الشيطان الباب كالشيطان كي فرطا ومحاجرة القضاء والقدر مرة توقف دافه لما على عاله قاربا وحي لهدين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هدينا اللي تشوقي لهاي وقوة منافقين وحيلين مسلمين تصور ما نسي هدي اسكي تشوقي لهاي ونالا فردي لهايين ما ماتوا وما قتلوا ما نيدنتين لبندلين إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وحتى قريه نادا كترتان انت وقتك وكرنا ما تجيرد ويوم الله يبا إلهي سبحانه وتعالى سأوجد لو waxay culimada qaar yiraahdaan mawduucu tacliimku ma ku fiicantay ayaa la isticmaali karaa oo maalan jaamacad baad ka soo qalay jabisay wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yiri ila tale markaas waxaad ku tiri maanta haddaan jaanis ka haysan lahaa low kan haddaan jaanis ka haysan lahaa kan maan galayna ka haysan gali lahaa وللتعليم قف كم بعد ربطين هذا والنتيجة أنا وضدا صوم ريوم في عناه واحد سكوت ضيدا محي كان كلينا ساس الدرادات بالنبي لها لو استقبلت من أمري ما استدبرت مركي أيوت المامي دتكي صاح الدي عمرضة ما حاجة صاح الدي حلالو بكروي هدي جودي هذا هدي وضم حلالو ما بيصير هذا نار كيك هذا وحي صورنا في هذا يبلام ملها بالنبي ليه هدينا ما صوك حيين ضدكنا ولا حلالو بالها النبي عليه الصلاة والسلام علماء واحد هذا المركة من باب التعليم يما لها هديتهاي وبنانتهاي لكن باب علاعلك هديتهاي بإلين ما بنانا